wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Togdheer ayaa gacanta ku dhigtay isla markaana maxkamad la tiigsatay dadka ganacsanayay qolof laga diiray jirida dhirta ay ka baxaan fooxa madiga iyo geed quwaaxu ee gobolka Sanaag ka baxa waxaana ay maanta meel fagaara mas'uuliyiinta wasaaradani ku gubeen qolofta laga soo jafay dhirtaasi ee loo soo ekeysiyay fooxa taasoo loo iibin lahaa foox ahaan mas'uuliyiinta gobolka Togdheer taliska booliska ee gobolka iyo mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka ee gobolka Togdheer ayaa wada jira baaq ugu diray bulshada gobolka Sanaag iyo guud ahaan badalka ee loo soo iib geynayay qoloftaasi fooxa loo ekeysiyay maamulaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Togdheer Cabdilaahi Xuseen Jaamac ayaa isagu si gaar ah fariin ugu diray ganacsatada xabkaha iyo faleemka ka ganacsata ee Soomaaliland inaynu ku baabino ama ku gubno qolof laga soo jafay dhirta ay ka baxdo fooxa iyo maydiga iyo geed quwaax halkan aan ku qabanay wixii la soo qishay laga soo dhigayay fooxa loo soo ekeysiyay dabadna maxkamadda la geeyay maxkamaddu waxay xukuntay gudoomiye in la baabiyo oo la gubo wixii aan anfac lahayn ee qofkii soo jafayna anfac u lahayn iyo dadkii soo jafay qarankana aan anfac u lahayn waxaanay keentay inay dhirtii imika soo kabato sidaan wararka ku hayno diirkeedii ku soo noqdo wixii hore ee la wadayay la diirayna ay joogsadaan go'aanadanu ka soo saarayna waxa ugu muhiimsan arinta in gaarigii foox sida ama beeyo sida ee ka yimaado gobolka Sanaag ama ka yimaado Guban ee gobolka Togdheer imanaya in xarunta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga gobolka Togdheer la keeno halka lagu baaro wixii ku jira ee qashinaha laga helana laga rogo si oo loo ururiyo sida kaasoo kale maanta kale loo gubo dadka ganacsatada ka ganacsada xabkaha iyo faleenka waxaan uga digaynaa ka gobol ahaan ka wasaarad ahaan in ay dhirta la soo jafay ama asalka la soo diiray inay ganacsi ka dayaan in ay dib u soo qaadaan inay dhulkooda u tudhaan waxaan u soo jeedinaa dadkaas inay dhulkooda u tudhaan waxaan leenahay gobolka Sanaag de sidaan culayska u saaray idinkuna culays noola saara waxa ciidanka bilayska ee gobolka Togdheer ku amran yihiin inay oo kantaroolo dhanaan ku ballaminay inay wixii ay arkaan ee xaga ka imanay inay qabtaan hadday dhuxur sidaan iyo hadday sidaan geeda iyo hadday kuwan iyo wixii ka daran bay ay sameeyaan nimaad guuriga dhirta amar waxay ku qabaan inay qabtaan wasaaradda la soo xidhiidhina ay keenaan haween hawshanu waa dhirtii ay ka soo go'ayeen meeydigeen iyo xabagteen iyo wax walba iyo geed quwaaxeen oo la soo diiray oo la baabiyay tanay qabteen maanta burco waxay u tahay amaan hawsha lagu khaldayay dadka foojariga ee lubaanka foojariga laga sameeyay ee wasaaraddu qabatay aad baanu soo dhaweynayna waxaana weeyaan ka gobol ahaan waxaanu dhammaan diyaaruna inuu hawlaha aanu gacanid ka siino wax weyn kala qabanno waa markii ugu horeysay ee foojari laga sameeyo fooxa lagu qabto xarunta gobolka Togdheer Mustafa Cismaan magaalada telefishinka qaranka Soomaaliland.